سؤاله بدن با حالي إلا شلي مركي اللي يجري ما تجيش هذا برايم مينستر كي ودن كعقصين برلمانك يلي يسوي الدين وحال كملها سؤالي أذكره اللي يسوي الدين هذي محا لقرينها يا أو إن برلمانك كشفته للدين هذا وحا كملها سؤالي كله اللي يسوي الدين برلمانك أضاو مكان oo xukuumadeedii ay wada maqantahay aysan isgaafinin hadii ay go'aan soo saarto ma aqbali doontaa labada arrimoodba anoo kaga jawaabahay mabda'i ahaa horeyna iima soo marin wax Soomaaliya u turid ama wax u dhimahayana ma samaynayo labadaba waxaan rabaa inaan ummadayda horteeda uga jawaabo midda hore maxaa la qarinayaa ahay oo maxaa lagu diidayaa waxa aad ogtahay oo la diidayo inaad ummadda iyo baarlamaanka la qaybsato ama haysa waa ka jawaabaya kow waa dad inaan wax badan ogahay sababtoo ah hal sano baan fadhiyay xafiiskayga oo prime minister ki dabta ahaa oo Soomaaliya ahaa xog badan inaan hayo layskuma hayo laakiin waxaan cadaynayaa weligiina ma yeelin mana yeeli doono xog Soomaaliya wax u dhimaysa inay wax u tagto maahe inaan ama meel public ah ka sheego ama dagaal iyo sidaan waa khalad ku sax inaan dhaho maya sida la aligeed waa hubaal ubadaydan halkan ku taaloon baarlamaanka ugu talagalay haba yaraatee wax Soomaaliya dib u ah ama dib u celinaya institutionska maanta soo kacaya kuma jirto mana u ogoli taariikhdayda inay gasho daacid maalinkaas uu Soomaaliya xaqsaday horeyna uguma jirin haddana ma geli doonto sida la aligeed taas waa in laga walwalaada wax khatar ah waan la dhageysan doontaano waa idin wada aqrin doona laakiin mabaadiida aan ku shaqeeyo dhan baa waxay ahayd lagama yaabo wax kastoo ogahay wax jibu dhac ama shock gelinaya geedi socodka Soomaaliya ee dawladda in afkayga ay ka soo baxdo waan uga turahayaa waan jeclahay dalka iyo dadka waan u soo shaqeeyay mana rabo taariikhdayda inay iyar ay taabato waa ka gudbayaa su'aasha labaad oo ah adoo maqan haddii baarlamaanku xukmi gaaro oo yiraahdo sidaas baanu ka garanay ayadoo aan la isdaafin oo qodobadii lagu soo eedeeyay laga difaacay maxaad yeeli doontaa ayadana si sahlan yaan waliba horay ayadoo baarlamaanku uusan dhamaysan doontiis uga sii jawaabaya iguma jirto wax Soomaaliya dhibahay sina inaan sameeyo waa ogahay in arrintani marin darro tahay waa ogahay waxaan taariikhda ka dhigin inay tahay ma dacwadino caalamka uma sheegino inay Soomaaliya dhigto marka wax alla waxay soo saaraan waa ku qanacaya waliba waa ku dhiirigelinaya anoo maqan haddii ay iga soo go'aan gaareen ma dhahayo saasaad yeeshay inta u tago yaan si sharaf leh hortooda uga qiran doonaa hadday go'aan kasta oo ay soo saaraan taasna labadii arrimoodba halkaas ayaan uga jawaabaya intaas maaha waxa aan ku dulqaatay waa waxyaabo badan muddadii koobnayd khilaafku waa dhib badan yahay waxaan ogaaday Soomaaliya waxyaabaha muddada dheer ku meelgaarka aan ugu jirtay dawladnimaduna nooga daahday xukuumad jirta oo wax qaban inaysan jirin waa waayo aragnimada aan helay laakiin khilaafku wuxuu ahaa waxa ugu badan oo dilahay in xukuumadahaasi ay meelihii laga sugayay ay gaaraan waxaan ka arkay labadii wiil ilaa saddexdii wiil oo ugu dambeysay inta Soomaaliya maanta ka go'day baan arkay waxaan ku soo dulqaatay ma aha hadda waxa weeye inaan Soomaaliya kaga hagoogto interventionkii hal dhexdhexaadiyo odayaasha inaan kaga hagoogto crisis inaan ku abuuro baarlamaanka ma aqbali doontaa go'aankiisa iyo in kale inaanan eedaynin ama dhibaato kale aanan keenin maaha waxyaabo badan baan runtii kaga soo hagoogto Soomaaliya anna ku faraxsanaa khilaafku markuu bilowday walwal baa dadka ku dhaca institutionska dadka jooga way kala tagaan gaar ahaan ama way kala danaystaan gaar ahaan waxaan rabaa meel kale uma soo qaadanayo tusaale xukuumadeydaan rabaa waxay noqotay in wasiiradii ay walwalaan markii ay noqotay in la yiri khilaaf baa halkaas jira waxaad arkaysaa mid kugu dhawaanaya iyo mid kaa durkaya
وقتن كوحال ليري مركز خلاف دعو أدينا دبوا بدن كنتي ويلي كريستي سهلا كوا يقدر كهيا وطاها هي رقم باكير كده ساس يل أنا صلوا بدن أول دق هيا ويلي كري إنها فاير كريه ساعدان لتشوفنا كل وضوء ولا حفصين كرا كي الله في عندما شكرا ولا كفريسين كرا لكن إنسيشن في الصوماليا ساس دم معها haddaysan dan u ahayna mar rabo crisis cusub inaan Soomaaliya geliyo wasiirkani waa walwalay oo waa ka warwareegay marka ka aaso maya wasiirkani waa wasiirkaygi institution baan ka tirsannahay haduu walwalay asaga maaha walwalku waa khilaafka kore marka haduu yiri maxalkaad aada maxalkaad kii igu soo cararayna ma gulnayn ilaahay hortiisa marka la fiiriyo kii iga cararay oo walwalay oo shaqo kala qasbadayna ma ciqaabin maxaa yeelay ma rabo institution kan jilicsan inaan maaragtay uga daro maantay arrintii oo laga doodahayo golahiyo CDC aysan dhibi jirinin rajadii Soomaaliya oo aanan taabanin laakiin si aan wax ku darnay oo arrinta inaanu u gudbino si gacmo Soomaaliyeed oo institutionska Soomaaliya in lagu xalilo waxa la wixii ka soo baxana la qabto yaanu dariiqeeda hayna waana si ballan qaadayna inaan ku hagoogana inaan la faragelin ma wixii ka soo baxana waa aqbalayna gali ahaan waa hawl iyo qalbi aan u leenahay Soomaaliya waana si wari doonaa waa ka sii gudbaya arrintaas waxaan rabaa inaan si kooban marka uga hadlo su'aalihii loo baahnaa waa ka jawaabay waa cadeeyay in asalka khilaafkan soo ku yimid waa cadeeyay sidoo ku soo gaaray mooshinka وعدي خلق كي كلا أو عن تصدي لكن عن قصة بري وعدي وجه خلافات كي أو صوب حي إن أنا قفنا كل عقابين حكومة ضيدي إنتاج تحي وعدي إن عن قان حد كسبينه برلمان أنا أقبله تامر كأن كجدب وح عن فبا إن عن أجدب خبدي عن كشيء لها برلمان أو سيدي وحنا عن كلمة وحنا أنا كدرين إن عن حلقة كتيريو أو هدي برلمان كي الجديد إن عن كتيريو صدق كسحكنت ومبدأ عالم كوا إن عن لقي صدق أنا وكسوجه هي وأوجه عد يمثلين هيا وعد حب يلا لكن جروسيو هي أقانسي كسوجه هي محايا للدولة لماذا عن معمولينه وحا إسكالة ذاتك الصومالية meesha ugu badan oo wax la taarto ama wax la dhigta oo shaqada loo hayaa waa dadka Soomaaliyeed waxaan khudbadan ugu talagalay dhagahooda inay ku maqlaan bal eedayntii baarlamaanka waxaan qabo si kooban wax badan waa ogahay laakiin waxaan isir lama qarin kare ummadda la qabso oo caqabadihii jiray qayb ka ahaayeen ayagana si kooban baan u taabanaya idinkoo raalli iga ah malaha waa dheereeyay aragtay yaan waxaan rabaa si toos ah inaan u galo khudbadii aan ugu talagalay inaan baarlamaanka ka jeedo khudbada ayada ahi waxay u taalaa sidan soo socota bismillahir rahmaanir rahiim marka ugu horeysa waxaan salaan waafiya u hibaynayaa guddoonka iyo xubnaha golaha haybada weyn ee shacabka oo ay habboon tahay in mar walba la xasuusto in fadhigiisa guud yahay hay'adda dastuur ahaan ugu sarreysa uguna awood badan qaranka Soomaaliyeed mudanayaal iyo marwooyi markay taariikhdu ahayd 24 bisha November 2013 waxaa golaha sharafta la iga keenay hindise mooshin la xiriira kalsoonida xukuumadda fursadan qaaliga ah ee guddoonku siiyay waxaan uga faa'iideysanayaa inaan uga jawaabo su'aalaha shanta ah ee moshinku ka kooban yahay su'aasha koobaad waxay la xiriirtaa su'aalo la iga weydiiyey marka la eego barnaamijkii alla timid xukuumaddu ay la timid sanadkii hore ee November 5 ma wada fulay mise ma wada fulay shan qodob oo arrimaha gudaha arrimaha dibadda arrimaha bulshada iyo arrimaha maaliyadda iyo dhaqaalaha ah yaa qorshahaasi ku koobnaa waa su'aasha koobaad su'aashaas baan u gudbahayaa bal inaan ka jawaabo waa arrin su'aasha ugu dheer
waxayna la xiriirtaa dhammaan barnaamijkii aan gudbiyey 5 November tani waa su'aasha aasaasiga ah kuwa kale afarta kale waa su'aalo kooban aad u kooban oo ayagana jawaabahoodu ay soo socdaan midanse waa ku daahi doonaa maadaama ay aad u dheer tahay waxaana taaban doonaa afartii arrimood oo muhiimka ahaa dhammaantood si aan jawaabo waasi uga bixin waayahay jawaabta su'aasha koowaad waayahay ayaduna waxay ku bilaabanaysaa horudhac kooban jawaabahayga muushinkani waxaan jecelahay in aan ku bilaabo weedii ina faraxa gelisay ee beesha caalamku 16 September ka soo jeedisay Brussels ee ahayd sidan kadib markaan ku qanacnay horumarka la taaban karo ee xukuumadda Soomaaliya ay ka samaysay dhinacyada siyaasadda ammaanka iyo heshiisiinta iyo arrimo kale oo muhiim ah waxaanu go'aan ku gaaray in shirka Brussels loogu ururiyo Soomaaliya taageero dhaqaale oo badan si loo dhiirigeliyo loona taageero horumarada ay iyo calaamadaha wanaagsan ee dawladnimo ee ka muuqda Soomaaliya statementigani waa statementigii Brussels laga soo jeediyey markii naloo kugu aruurinayay hantidii badnayd ee 2.4 bilyan oo dollar ahayd 16 September taa micnaheedu waxa weeye caalamku wuxuu aqoonsaday wixii Soomaaliya ka dhacay ayagoo lagu bays garaynayo wixii dhacayna waxa loo kaga abaalguday in Brussels naloo qabto weedhaas Brussels iyo shirarkii kale ee London Yokohama Geneva iyo kuwa kale ee qorshaysan intuba waxay ka markaati kacayaan kana tugtumayaan qiimeyn caalami ah oo dhexdhexaada markaan uga dan leeyahay waxa weeye aan ka imaanin dhinac dawladda ah ama shacbigeeda laakiin dhinac banaanka naga aha oo eegahayay qiimeynahayayna waxa gudaha ka socda dhanka kale IMF bangiga adduunka iyo bangiga horumarinta Afrika way aamineen oo ku qanceen isbedelka iyo horumarka aynu samaynay iyo waxa nooga qorshaysan maamulka maaliyadeed iyo dhaqaalaha dawladdeena hay'adahaasi lama dhaqmaan xukuumadaha fashilaya waxay dhiirigeliyaan kuwa degdegta u kabanaya ee mustaqbalka leh sida Soomaaliya oo kale sida caalamku noola dhaqmayo waxay sawir cad u tahay sida aan u maamulayno siyaasadda arrimaha gudaha ee Soomaaliya taa micnaheedu waxa weeye waan guulaysanay ee ma annaan fashilin haddaba maxaa noo qabsoomay muddadii koobnayd ee halka sano ahayd waxaan ku bilaabayaa inta aan shaqada la gelin waxaa la eegaa qofka isbedel doonka ah dhaqankiisa iyo siyaasaddiisa halkan waxaan soo geliyey bal ha la eego dhaqanka iyo qaabka aanu ku bilownay shaqadii inta aanu aaminsanahay ama aan u maray shaqadii aynu qabanaynay waxaan la nimid dhaqan iyo mabda' siyaasadeed oo cusub oo ku dhisan isbedel doon saldigiisu yahay sinaan abuurid xasiloomi siyaasadeed dhaqan shaqo samir badan iskaashi iyo musuqmaasuq la'aan isbedelku waa xanuun badan yahay caadiyana sahal looma aqbalo hase yeeshee maanta beelaha Soomaaliya ee shanta ahi waa siman yihiin taa micnaheedu waxa weeye horteed ma sinayn dumarku markii ugu horreysay bay si maktab ahaan u muuqata uga qayb qaadanayaan siyaasadda dalka xukuumad ahaanna waxaanu muujinay in aanan ahayn mulkiilayaasha siyaasadda Soomaaliya balse aanu nahay maamulayaal oo qurax tusaale waxaan si isdaba joog ah u qabanay shirweynihii cadaaladda siyaasadda waxbarashada culimada iyo caafimaadka haddana waxaa noo qorshaysan shirweynihii amniga halkaas waxaa ka muuqata in talada dalku u sii gacangelayso dadka weliba annagoon si buuxda u dhaqangelin habka federalismka ee aan dooranay kuna qeexan dastuurkeena siyaasaddan iyo dhaqankan cusub ee xukuumadaydu waxay horseed u yihiin isbedel la aamini karo ee Soomaaliya aan u horseedo dhaqanka iyo caqliga aan shaqada ku bilownay si kooban waxa weeye ummaddu ha sinaato ha aaminto shaqada
hay isu dulqaadato